waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaanu idin soo gudbinaynaa ciidanka difaaca Puntland oo maanta gaaray guulo waaweyn hubkii ugu cuslaa ee kooxda Daesh ay lahaydna gacanta ku dhigay guulaha ciidanka iyo sidoo kale tirada hubka iyo sida uu ku bilowday howlgalka wajigiisa saddexaad ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Dani ayaan idin soo gudbin doonaa balse intayna guda galin waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horeysay ee soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkana like aad saarto si uu dad badan u gaaro waayahay waxa bilowday sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani howlgalka Hillaac wajigiisa saddexaad oo si dardar leh ku bilowday haddaba maxay tahay guulaha maanta ciidanka ay gaareen iyo sidoo kale jabka markaas la gaarsiiyay kooxda Daesh tirada hubka ciidanka difaaca Puntland ayaa maanta waxa ay galeen qaybo kamid ah goobihii ugu adkaa ama godadkii ugu adkaa ee kooxda Daesh ay ku lahaayeen buuraleyda Calmiskaad gaar ahaan aaga bariga magaalada Dhaadar waxaana goobta ay ciidanku galeen laga helay hub aad u tiro badan oo kooxdan ay markaasi ku haysatay halkaas in ka badan 40 qori oo nooca AK47 ka iyo sidoo kale boobayaasha loo yaqaano BKM-ka isnaabarada casriga iyo dhashiikayaal ay heleen ciidanka difaaca Puntland sidoo kale goobta waxa loogu tagay meydadkii ugu badnaa ee kooxda Daesh kuwaas oo la aaminsan yahay in ay ku leedeen duqeymihii diyaaradaha ay ka fuliyeen deegaanada ay ku sugnaayeen kooxdan waayahay haddaba Puntland maxay uga dhigan tahay helida hubkan waxay ka dhigan tahay in hubkii ugu halista badnaa ee kooxda laga qabto intii ugu badnayd gaar ahaan qoryaha toogashada fog iyo dhashiikaha oo inta badan ay u adeegsanayeen in ay ku laayaan ciidanka difaaca Puntland sida la ogyahay saraakiil badan ayaa Puntland ka geeriyootay inta dagaalka uu socday waxa la aaminsan yahay in sababta taasi keentay inay tahay qoryahan casriga ah ee kooxdan ay ku haysatay aagaga ay kaga sugnaayeen aaga toga jacayl aaga maanta lagala wareegay ayaa ahaa goob markaasi muhiim ah oo wax baabuur ah aysan geli jirin kiimikooyin sun ah wadooyinna aan markaasi loo sameyn warshado noocyo kala duwan oo ku jiraan kuwa xataa qalabka biyaha sifeeya ayaa laga helay iyo qaboojiyaal waa aaga maanta ay galeen ciidanka difaaca Puntland ee howlgalka baaxadda leh ka wada deegaanada markaasi buuraleyda Calmiska haddaba ciidanka kala duwan ee difaaca Puntland oo durba qaatay amarka madaxweyne Siciid Dani ee ah in uu bilowdo wajiga saddexaad ee howlgalka ayaa waxa markaasi xaqiiqo ah in uu si dardar leh ku bilowday inkastoo dawladdu wali wax faahfaahin aysan ka bixin wajiga saddexaad ayna sheegin halka uu ku dhamaan doono laakiin waxa muuqato in uu yahay wajigii saddexaad ee howlgalka Hillaac masaafada uu howlgalka Hillaac wajigiisa labaad socday waxay ahayd kala bayr ilaa Dhasaan oo ah masaafo dhan 315 kilomitir maanta oo ah 28 Febraayo waxa bilowday wajiga saddexaad ee howlgalka Hillaac wajigan saddexaad ciidanku waxa ay maanta gaareen deegaanka Dhaadar iyo xarumo kale oo ay duqeeyeen saaxiibada Puntland waxaana laga helay meydad fuuray ama bararay iyo hub ay ka mid yihiin gantaallo qoryaha fudud iyo sidoo kale diiradaha habeenkii wax lagu toogto wax lagu arko dhinaca deegaanka uur caleed iyo sidoo kale dhaban qooxle oo ahayd xaruntii IS uur caleed oo hore ayadana loo duqeeyay waxa sidoo kale laga helay meydad bararay dameero iyo saanad ciidan oo u badan hubka fudud haddaba wajiga saddexaad waxa loo badinayaa in uu yahay qarar iyo buuraley gaadiid kuna noqon doonaan awr iyo dameero oo ay adeegsadaan ciidanka difaaca Puntland waxa xusid mudan in shacabka Puntland gaar ahaan reer miyiga in ay ugu deeqeen ciidanka awr ay markaasi isticmaalaan maadaama ciidanka sahayda aysan jirin gaadiid u daabuli kara kaliya waxay adeegsan karaan uu yahay awr
haddaba maadaama Puntland ay ka soo farxalatay wejigii koobaad iyo labaad haatan waxaa si rasmi ah u bilowday oo waliba natiijo fiican ku bilowday wejigii saddexaad oo ciidanka waxay gacanta ku dhigeen hubkii ugu badnaa waa tan iyo intii uu bilowday howlgalkan oo ay ka qabtaan kooxdan. haatan howlgalka gabagaba ayuu ku dhow yahay oo waxaaba suurtagal ah in wejiga saddexaad uu ka fududaado wejigii labaad maadaama hubkii ay ku dagaalami lahaayeen tiradii ugu badneed laga qabtay horjoogayaasha inta ugu badneed ay ka geeriyoodeen. sidoo kale waxa hadda haray uu yahay tirtirida iyo sidoo kale nadiifinta iyo in la soo qabto horjoogayaashii ugu sarsareeyay kooxdan oo ilaa hadda ku dhumaalaysanaya deegaano cusub oo ay gaareen. maadaama dhulka buuraleyda Calmiskaad uu yahay dhul baaxad leh haddana ciidanku waxa ay markaasi wadaan go'doomin iyo sidoo kale inay isku hareereeyaan si uusan midna u baxsan. kooxda oo doonaysa haddii xaalka uu sii xumaado inay doomo ku baxsadaan oo dhinaca xeebta ay ka baxaan. Puntland waxa ay markaasi durba ay dhaqdhaqaaq xoogan ka bilowday dhinaca xeebaha oo waxay isku dayayaan in ammaanka xeebaha ay adkeeyaan si aysan u saamixin in nimankan ay cararaan kana baxaan dhanka xeebta. waxaanu qorshuhu yahay laba midkood in goobahooda lagu dilo oo la duqeeyo ama lagu weeraro ama in ay isa soo dhiibaan sida uu sheegay taliska ciidanka difaaca Puntland ee howlgalka adag ka wada buuraleyda Calmiskaad. Puntland guul weyn ay gaadhay tan iyo inta dagaalka uu bilowday waxaana la oran karaa waa state-ka kaliya argagixisada si dhaba ula diriray kana saaray deegaanadooda. waxaana haatan socda guluf aad u weyn marka loo eego xaaladda dagaal iyo hubka casriga ah ee nimankan ay haystaan. wararkeena hore waxaan ku xusnay in laga qabtay kooxdan warshadii hubka u sameyn jirtay waxaana loogu tagay in ka badan 2,000 oo gantaal oo la aaminsan yahay in 2 gantaal oo kamid ah ay tijaabiyeen bilihii October iyo November isla markaana ay doonayeen in ay ku gumaadaan shacabka Puntland. madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay in halis weyn ay ahayd kooxdan in laga hortagana ay wax wanaagsan ahayd. xog ayna helo waxa ay sheegaysaa in haddii aan la weerari lahayn kooxdan Daacish in qorshahooda uu ahaa inay qabsadaan magaalada Boosaaso marka loo eego hubka ay diyaarsadeen gantaalada iyo qoryaha fudud iyo ciidan ahaanba qorshahooda wuxuu ahaa in Boosaaso ay la wareegaan iyo guud ahaan gobolka Bari. balse Puntland oo xogtaasi heshay waxa ay qaaday duulaan ballaaran dhamaadka bishii December waana mid sababtay in kooxdan awoodoodii oo dhan la wiiqo. haddaba haddaad nala soo gaadhay ilaa dhamaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa in muuqaalkan like aad saarto si uu u gaaro inta jecel jabka argagixisada Daacish kuna faraxsan guusha ciidanka Puntland ay gaareen. naguna soo biir haddaad nagu cusub tahay oo subscribe ka taabo mahadsanidin.